wuxuu hoggaanka u qabtay 60 qowmiyadood oo kala duwan, qowmiyad walibana ay leedahay dhaqan u gooniya, wuxuuna ku mideeyay muddo kooban. Mar walibana wuxuu ka soo horjeeday gargaarka kaga imaanaya dalalka shisheeye. Markii arrinkaa wax laga weydiiyeyna wuxuu ku soo koobay hadalkiisii: qofkii ku quudiyaa wuu ku xakameynayaa. Si taa lamidana wuxuu diiday inuu bixiyo deymaha ay ku sheeganayaan gumaystayaasha. Dalalka Afrikaanka ahna mar waliba wuxuu ku boorinayay inay diidaan bixinta deymaha ay ku sheeganayaan gumaystayaasha si aysan faragelin dhaqaale ugu sameyn dalalkooda. Wuxuuna muddo 4 sano aan dhammayn ku dhisay dal dhinac waliba ka dhammaystiran, waana halyeygii mideeyay dalka hadda loo yaqaano Burkina Faso, waana hogaamiyihii ugu horeeyay ee Afrikaan oo diida bixinta deynta lagu leeyahay dalkiisa. Asalaamu calaykum asxaabay, soo dhawaada mar kale. Intaynaan si toos ugu guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta comment. 22 Diseembar 1949 wuxuu Thomas Sankara ku dhashay magaalada Yogo ee dalka Burkina Faso. Aabihiina wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Faransiiska ee la dagaalamayay Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Thomas Sankara wuxuu ciidanimada ku biiray isagoo 19 jir ah, waxaana tababar loogu diray dalka Madagascar. Wuxuuna halkaas ku soo bartay hanti wadaagga iyo arrimo kale oo fara badan. Wuxuuna dalkiisa ku soo laabtay 1972. 4 sano kadib wuxuu noqday hogaamiyaha tababarka ciidamada gaarka ah, waxayna halkaas isku barteen Blaise Compaoré oo ugu dambeynna noqday saaxiibka Thomas Sankara. Waxayna si qarsoodi u aas-aaseen koox yar oo ka kooban 5 xubnood oo ay ka mid yihiin Thomas Sankara iyo Blaise Compaoré oo ah saaxiibka Thomas Sankara. Wuxuuna yoolkoodii ahaa inay afgembi kula wareegaan xukuumadda talinaysa xilligaas. Ugu dambeynna waxay ku guuleysteen inay afgembi kula wareegaan dalka sanadkii 1983. waxayna Thomas Sankara u doorteen inuu noqdo madaxweyne. Qabadyadii uu qabtay Thomas Sankarana waxaa ka mid ah wuxuu dalkiisii ka bedelay magacii hore ay u bixiyeen gumaystaha oo ahaa Upper Volta, wuxuuna u bixiyey magac ilaa haatan loo yaqaano oo ah Burkina Faso, macnaheeduna uu yahay dhulka dadka sharafta leh. Wuxuuna naqshadeeyay calanka dalka. Thomas Sankara wuxuu awoodiisii isugu geeyay sidii uu uga takhalusi lahaa kaaba qabiilada, maadaama dalka uu ka koobnaa 60 qowmiyadood, qowmiyad walibana ay leedahay dhaqan u gooniya iyo hogaamiye u qaas ah. Wuxuuna ku guuleystay inuu mideeyo shacabkiisa oo dhan. Wuxuuna 2.5 milyan oo caruura ku tallaalay wax ka yar 2 isbuuc. Adeega caafimaadka ee dalkan wuxuu ka dhigay mid free ah, wuxuuna kor u qaaday oo qiimo sare u yeelay aqoonta. Halka markii hore dadka wax qoro waxna akhriya ay ahaayeen 15%, wuxuu gaarsiiyey dadka wax qoro waxna akhriya 75%. dhulka dalkiisa oo ku sii dhawaa markii hore inuu noqdo saxaro geeda la'aan aawadeed ayuu ku beeray 10 milyan oo geeda ah. Wuxuuna shacabkiisii ka dulqaaday canshuurtii faraha badneed oo laga qaadi jiray, taasi oo markii dambena sabab u noqotay in dalka uu gaaro isku filnaansho dhaqaale. Sidoo kale Thomas Sankara wuxuu diiday bixinta deynta lagu leeyahay dalkiisa. Deymahaasna waxaa kusoo sheegtay inay ku leeyihiin IMF iyo Bangiga Dhexe ee Adduunka. Wuxuuna kaloo diiday in hay-adaha kheyriga ama deeq-bixiyayaasha ay siiyaan lacag uu ku fangareeyo dalkiisa. Midana wuxuu u sheegay dalalka Afrika inay diidaan deeqda kaga imaanayso dalalka shisheeye. Wuxuuna ku yidhi hadal ay markii hore dhayalsadeen dalal badan oo Afrikaan, balse dib ay ka xaqiiqsadeen in hadalkiisa uu ahaa hadal saxan. Wuxuuna ahaa hadalkaasi: qofkii ku quudiyaa wuu ku xakameynayaa. Wuxuuna u xaqiijiyey dalalka lagu tiriyay dunida saddexaad in dal waliba uu gaari karo filnaansho isagoon dalalka shisheeye weydiisan wax gargaar ah. Wuxuuna dumarka dalkiisa u magacaabay xilal sare, isagoona u sameeyey maalin u gaara dumarka, maalintaas oo howsha ay dumarka oo dhan qaban jireen qabanayaan ragga. Ka hor intuusan Thomas Sankara u sameyn qiimaha dumarka dalkiisa, kuwa mar waliba la liido, xitaa looma ogola inay kasoo dhex muuqdaan goobaha waxbarashada. Wuxuuna dumarku ansixiyey fasaxyada xilliga ay uurka leeyihiin. Wuxuuna mamnuucay guurka qasabka iyo gudniinka fircooniga. Intaa kadibna wuxuu u soo jeestay dhanka madaxda, isagoo kusoo rogaya shuruuco adag. Ugu horreynna wuxuu hoos u dhigay mushaarka madaxda oo dhan, isaga
ayaana iska bilaabay, waxaana la xaqiijiyey in mushaarka Thomas Sankara bishii uu ahaa $450, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu mushaarka yaraa ee soo mara qaaradda Afrika haddiiba uusan noqon madaxweynihii ugu mushaarka yaraa adduunka. Wuxuuna xaraashay dhammaan gawaaridii qaaliga ah oo ay wateen madax, isagoona ku bedelay gawaari xilligaas raqiiska ahaa dalka oo lagu magacaabo Rune. Sidoo kalena wuxuu diiday in xafiiskiisii lagu xiro qaboojiye. Markii wax laga weydiiyeyna wuxuu ku sababeeyey in shacabkiisu aanu nasiib u yeelan inay wada isticmaalaan qaboojiye, isagoona taa ula jeedo waxaan isticmaalayaa wax weliba ay shacabkayga wada heli karaan. Wuxuuna diiday in sawiradiisa lagu dhajiyo goobaha ganacsiga, isagoona taa ku sababeeyey in qof weliba goobtiisa ganacsi uu madax ka yahay. Ayna jiraan 7 milyan oo Thomas Sankara oo kale ah. Sida caadada ahina geesi weliba oo soo baxa ma aha mid sii waara ee waa la dilaa. Thomas Sankara waxaa dilay kooxo hubeysan isagii 12 saraakiil oo kale. Taariikhdu markii ay ahayd bishii Oktoobar 15keedii 1987. Qorshaha dilka Thomas Sankara waxaa dejiyey Blaise Compaoré oo ahaa saaxiibka Thomas Sankara. Kastoo ay jirtay in Thomas Sankara dhowr jeer looga digay saaxiibkiisa uu maleegay qorshihii lagu dili lahaa, balse mar weliba oo loo sheego wuxuu ku jawaabi jiray saaxiibadu ma aha kuwa isqiyaameeya. Hase ahaatee markii la dilay Thomas Sankara waxaa xilka kaga dambeeyey, wuxuuna xilka hayay 27 sano. Markii uu Blaise Compaoré qabtayna xilka, wuxuuna camleeye u noqday reer galbeedka, wuxuuna dalka ku celiyey faqiirnimadii hore iyo abaaro hor leh. Blaise Compaoré wuxuu xilka iska casilay sanadkii 2014 kadib markii ay shacabka Burkina Faso ku mudaharaadeen, weliba mudaharaad aad u weyn. Wuxuuna u baxsaday dalka Ivory Coast, waxaana lagu soo eedeeyey dilkii Thomas Sankara. Thomas Sankara wuxuu hanti ahaan uga tagay dunida 3 gitaar, 1 qaboojiye, 4 baaskiil iyo 1 fininjeer. Ugu dambeynna waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. Waxaana rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacayna like sar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta comment. Au marché du poulet et de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile. Et puis, forcément, cela fera tache d'huile. Bon, du reste, déjà, certains militaires ont estimé